Ciidamada Militariga Sudan ayaa ka bixi doona siyaasadda dalkaas kadib doorashada la qorsheeyay sanadka 2023 sida uu sheegay General Abdel Fattah al-Burhan oo wareysi siiyay wakaaladda wararka Sabtidii shalay ahayd. waxaanu General al-Burhan intaasi ku daray in militariga aanu wax door ah ku yeelan doonin isbeddelka dalka Sudan. marka la doorto dawlad ma filayo inuu ciidan ama nabad sugid ay ka qayb galayaan siyaasadda waxaana intaas mid aan ku heshiinay waana xaalad dabiici ah. marka la doorto dawlad ma filayo in ciidan ama nabad sugid ay ka qayb galayaan siyaasadda waana taas mid aan ku heshiinay waana xaalad dabiici ah ayuu yiri Burhan. kadib la wareegistii military ee uu hogaaminaya al-Burhan dabayaaqadii Oktoobar taas oo dib u dhac ku keentay dimuqraadiyaddii Sudan oo ay hogaaminayeen xubnaha rayidka ah ayaa dhinacyada militariga iyo rayidka waxaana bishii hore ee November 22keedii ay gaadheen heshiis dib loogu celinayay ra'iisul wasaare Abdel Hamdok si uu hogaamiyo golo wasiiro ilaa inta laga gaadhayo doorashada July 2023 afgambigii militariga ee soo afjarmay wada shaqayntii ay la lahaayeen axsaabta siyaasiyiinta ee rayidka ah kadib ridistii Umar al-Bashir ayaa la kulmay dhaleecayn caalami ah kadib markii xabsiga loo taxaabay tobaneeyo mas'uul oo muhiim ah isla markaana la xiray dibadbaxyaal. kooxaha la baxay iska caabinta iyo weliba axsaabta siyaasadda ayaa ugu baaqay in si degdeg ah ay hogaamiyayaasha militariga uga baxaan siyaasadda iyadoo diiday heshiiska cusub ee qayb ka yihiin ra'iisul wasaare Hamdok waxaana weli socda dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo militariga. ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay intii ay socdeen mudaharaadyadu kuwaas oo intooda badan ay ka soo gaadheen dhaawacyo rasaas ah oo ay ku furan ciidamada ammaanka sida looga soo xigtay dhaqaatiirta Sudan. Faraxkiisa Axmed, Ariel TV, Hargeysa.